Doomiyaha gobolka Hawdal ayaa furay shirkii caadiga ah isku duwayaasha laamaha ee gobolka Hawdal ay toddobaadkiiba markuu yeeshaan xarunta gobolka Hawdal ee Boorama. Shirkaasina waxa lagu falanqeeyaa qorshaha waxqabad ee gobolka, isla markaasina lagaga doodaa maxaa qabsoomay, maxaa u baahan in la qabto mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog. Kulankaasi oo ku dheeraaday sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo wasaaradaha ee gobolka Hawdal. Waxaana kulankaasi hadallo warbixin iyo soo dhaweyn ka jeediyay xogayaha gobolka Hawdal, waxaana hadaladiisii kamid ahaa qabsano shirkeennii khamiislaha ahaa ee isuduwayaasha wasaaradaha kulay weegii hore waxaan ku balansanay inaynu qabsano shirkeenna sida caadiga ahayd, laakiin waxaan ku mashquulsanayn hawlaha abaaraha iyo mataqaanaa kulay waxaan galnay xaalad gurmad degdeg ah. sidoo kale waxa isaguna ka warbixiyay isuduwaha wasaaradda qorsheynta gobolka Hawdal Cabdiraxmaan, wuxuuna ka dhawaajiyay iskuduwayaasha laamaha dawladda Hawdal waxqabadkoodu halka uu marayo. waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya inaan soo summarize gareyno ama soo gaabino horta qorshihii 3 sano ah ee gobolku lahaa oo ka bilaabmayay 2014 ilaa 2016 oo markaa dhamaaday imkana la doonayo la diyaariyo qorshihii labaad ee gobolku yeesho oo ahaa 2017 ilaa 2021. gudoomiyaha gobolka Hawdal Mustafa Cabdi Ciise Ducaale Shiine oo arrimahaasi ka hadlaya kale waxaan wadana sameyn doonaa guddigii horumarinta gobolka inaan dhisno ama inuu ka fiirsano intaan imika isjeejabina dabeedna in shirka dambe la nimaadno guddigii oo dhameystiran. guddigaas oo saynu sheegnay ahaan doona 2 guddi oo isla socda, guddi heer gobol iyo guddi ka socota dadweynaha aqoonyahanka ganacsatada dhalinyaradii waayeelka kala dumar iyo ragba gobolka ayaan ka dhigi doonaa. dhowr guddi bayna sugaya dhinaca horumarinta inaynu abuuro. waxaa ka mid ah isna guddigii dhismaha madaarka oo wasiirkii civil aviation uu maalin walba i weydiiyo yiraahdo guddiga maxaa loo soo dhameystir weyday. marka labadan qamiisood dhexdooda waa inaanu dhameystirnaa wixii guddi horumarineed. kulankanna waa kulan ay toddobaadkiiba yeeshaan laamaha dawladda laguna falanqeeyo waxyaabaha ay qabteen. waa Cadar Caafi, TV-ga qaranka, Boorama.